wafdani ka socday wadanka Turkiga jaamacadihiisa kala duwan iyo waliba mas'uuliyiinta dugsiyada ammaano ee magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay in la qaadayo dufcadii labaad ee imtixaanka loo galo jaamacadaha Turkiga. Tan ayaana kamid ah ardayda dugsiyada ammaano iyo waliba ardayda kale ee reer Somaliland ee danaynaya inay imtixaankaasi galaan. gudoomiyaha dugsiyada ammaano Cabdillaahi Xasan Ibraahin iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wadanka Turkiga ayaa ka waramay muhiimadda uu leeyahay imtixaankan iyagoo tilmaamay in ay dufcadii labaad imtixaankan ku galayso 11 July 2019 oo ku beegan maalinta berri ah oo Khamiis ah xarunta dugsiga ammaano. runtii waa dacfadii labaad ee imtixaanka loo fadhiisanayo maalinta Khamiista. imtixaankii hore loo fadhiistay ardaydii ka qayb gashay kolley waxa barnaamijka sharaxi doona qoladeennan Turkida ah. waxa kaliya aan anigu doonayaa in ardayda inaan u sheego marka scholarship la doonayo wax fudud maaha scholarshipku. waxa laga yaabaa qof waliba markuu imtixaanka galo markiiba inuu doonayo admissionkii iyo fiisihiiba inuu helo. ardaydii hore ee imtixaanka gashay maanta oo dhan qoladan wada fadhinay Turkiga ah waxaanu weydiinaynay su'aalo badan oo idinkana idiga dhex guuxaya. jaamacadaha Turkiga marka ardayda nin waliba fakalka uu doorto waxa la geynayaa jaamacadaha ay khuseeyaan. jaamacadahaasi marka jaamacad waliba waqti ayay ku qaadanaysaa intay natiijada soo saarayaan ee admissionka ardayga u soo saarayaan. runtii laakiin waxaanu boqolkiiba boqol ku kalsoonahay inuu barnaamijkan yahay barnaamij shaqaynaya. fursadda maanta aynu halkan u fadhinaana waa tii aynu hore isugu ogeyn oo ah fursado loogu tartamayo waxbarasho boqolkiiba 75 scholarship ah oo dalka Turkiga ah. waxbarashadaasi oo isugu jirta heerarka kala duwan ee master degree iyo bachelor degree. haddii aan si kale u idhaahdo ardayda dugsiyada sare ka baxday ee doonaysa inay wax ka soo bartaan ama shahaadada heerka koowaad ka soo diyaariyaan dalka Turkiga iyo ardayda jaamacadaha hore u dhameeyay shahaadada koowaad diyaariyay isla markaana doonayay inay shahaadada labaad ka soo diyaariyaan dalka Turkiga ayuu barnaamijkan u fududeynayaa inay helaan waxbarasho aad looga khafiifiyay oo ardayga 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood free looga dhigay. dhinaca kalena qaar kamid ah mas'uuliyiinta ka socday wadanka Turkiga ayaa ka warbixiyay waxaana ay xuseen in imtixaankan lagu galayo jaamacadaha wadanka Turkiga. Bu selamları aksiyonlarınızla fiiliyata dökebilir ve bunları aksiyona dökerek inşallah gerçekten ugu dambeyntiina ardaydii u diyaar garoobaysa inay ka qayb galaan imtixaankaasi ayaa waxay su'aalo kala duwan weydiiyeen mas'uuliyiinta ka socday Turkiga kuwaasi oo ardayda uga jawaabay. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka Home Cable, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha